بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودروستين رمضانية هاي منظمة الإحسان وأنا حلقة 10 تضبات أما سديدات عن الرهد عشر كان حكو سابسانية هاي أما درسي جيناني tobanka dambe ee ramadaanka iyo leylatulqadriga bisha ramadaan tobanka dambe habeenadeeda ugu fadli badan waayo iyada ayay ku jirtaa leylatulqadriga sidaa darteed baa tobanka dambeba in la dadaalo loo baahan yahay dadaal dheeraada in lagu bixiyo nabigeena sala allahu aleyh alihi wasalam waxaa ka sugan kaana yajtahidu fi lcashri alawaakhiri maa laa yajtahidu fii gayrih tobankaa dambe wuxuu bixin jiray dadaal u dadaali jiray si uunan u dadaalin waqtiyada kale xataa ramadaanka intiisa kale si uunan u dadaalin dadaaluusan bixin ayuu bixin jiray nabiga sala allahu aleyh ali wasalam dadaalkaas sida uu yahay markay caaisho tilmaamaysay radia allahu canha wa ardaaha waxay leeyahy nabigu tobanka hadduu soo galo أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره si loo kala hormariyo jumalka shadda mi'zarah guntigu isku adkayn jiray oo laga wada dadaal badan ayuu bixin jiray wa axyaa leyla habeenkana cibaaduu ku noolayn jiray wa ayqada ahlah dadkiisana waa toosin jiray oo jiifka ka kaca buu dhihi jiray xilli iyo waqti la jiifa lama joogo dadaalka sidaasa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sidaa u bixinayey tobankaa dambe maa laa yajtahidu fii gayrihi uu dadaali jiray reerka toosin jiray habeenka noolayn jiray sababtiisu waxay ahayd inuu raadinayey habeenka fadliga badan ee leylatulqadriga ah habeenkaasoo fadligiisa qur-aanka iyo sunnaduba ay isku raaceen amaa qur-aanka ilahi wuxuu yihi subxana wa taala inaa anzalnaahu fii leylati alqadr qur-aanka leylatulqadri baan soo dejinnay habeenka ajirka la helayo khayrun min 1000 shahr camalka la sameeyahay 1000 bilood oon leylatulqadri ku jirin buu ka fadli badan yahay lamid xataa maaha faradkiisuna faradkuu ka fadli badan yahay sunnadiisuna sunnaday ka fadli badan tahay fadligaa faraha badan 83 sano iyo waxoogay weeye 1000 bilood waa cimri dad yarun ay gaadhaan ka waran haddii aad intaasoo sano ood soomayso oo leylatulqadri ilaahay ku waafajiyo intaa unbaa lagu laalaabaya oo la isugu kaa dardarayaa midda kale ilahi wuxuu ku magacaabay in barakaysan inay tahay inaa anzalnaahu fii leylatin mubaarakatin inaa kunaa mundiriin habeen barakaysan baan soo dejinnay marka habeenkaasi inuu barakaysan yahay qadar iyo darajo iyo sharafna ilaahay agtiisa ku leeyahay baa halkaa layna tuso oo laynoo sheegay fadliga iyo barakadaas iyada oo la raadinayo ayaa waxaa la jideeyey in la ictikaafo tobankaas si qofka uu diyaar garoobo inuu habeenkii noolayn karo soo jeedi karo salaadii dikri iyo duca iyo qur-aanna ku mashquuli karo nabigana alai salatu salaam sanadaha ka mida intaan waxay ahaan loogu sheegin tobanka dambe inay ku jirto laakiin fadligeedana loo sheegay bisha ramadaanna loo sheegay inay tahay tobankii horreysay buu ictikaafay oo masaajidka dhex degay markay dhammaataa loo waxyoodoo loo sheegay inay weli dhiman tahay tobankii labaad buu ictikaafay oo masaajidka sii dhex deganaa markuu dhammaystayba waxaa lagu yidhi weli way kaa horraysaa dadkuu la hadlo wuxuu yidhi intaa waxaan u ictikaafayoon masaajidka u dhex deganaa habeenkaasaan raadinay waxaana la ii sheegay inuu tobanka dambe ku jiro qofkii ila sii dadaalaya ila sii joogaya ila sii ictikaafaya tobanka dambey ku jirtaa
haddaba tobankaa dambey ku jirto ee dadaal in lagu nooleeyo la rabo habeenkii oo cibaado iyo salaad iyo daaco iyo qur-aan iyo tasbiix iyo duca lagu soo jeedo waxaa soo jeedi kara qof nasan ictikaafku jirkaaguna waa nasanayaayo dee qof shaqaynayo ordayo maanta o dhan wareegaya ma tihid qof nasnaa oo masaajidka iska joogo iska fadhiya baad ahayd naftaaduna uma baahna iyo maskaxdaaduna nasasho iyo hurdo uma baahna oo waktiyo badan ood seexataa ku soo maray maalintii goor salaad subaxa la tukadeed waxooga yar joogtadaa iska dhacdo oo duhur agihii iska toosto ood waxooga yar duhur iyo casar dhexdood qac ka siiso oo haddana casar iyo maqrib dhexdood waxooga qac ka siiso adigoo markaa hurdo dhammaystay jirkaaguna nastay ayaa habeenka kuu soo gelaya dadaal ku horreeyaad bilowda xoog iyo orodkaad ku kacday iyo xawligu martabaa habeenka durbaadoo dhaafay baad arkaysaa oon wax daal iyo hurdo iyo cajisa midna dareemin maxaa yeelay jirkaaga iyo naftaadu hurdo iyo nasasho in ku filan maanta way haystaan taasi waxay garab iyo kaalmo u tahay oo loo ictikaafayaa in habeenkii soo jeedkii iyo noolayntii ay u fududaato ay sahlanaato haddiise subaxii shaqo iyo adduun aad ku orodo ood galabtii soo galbata adoo daalan oo say soomaalidu yidhahdaan kabna lulaya kabna laadlaadinaya haddii aaba tiraahda soo jeed habeenkii durbo waad daalaysaa waad ahaamsanaysaa waad lulmoonaysaa nafta haddaad habeen qasabto subaxii dambana shaqa u ka laado haddii habeenka afar labaad kuma dari kartid adoo maalin shaqaynaya oo habeen soo jeeday oo maalinkii shaqaynayay shaqadaadana way saamayn habeen kalena ma soo jeedi kartid waxaad noqon laga yaabaa inaad ilaahay baan baryi tiraado adoo hurdaysan isogeen ishabaarto suu nabigu ku sababeeyey sal ly slam adoo hurda markay hurdo ku qabata in la iska seexdo haddii kale waad ishabaari adoo ducaysanaya waayo ismoogay afkaaga waxaa ka soo baxay carabkaagu siduu leeyahay daal iyo hurdo darteed si arrintaa looga badbaado habeenkiina aan nashaadkaaga iyo firfircoonidaada iyo nasnaanshahaaga iyo awooddaada iyo karaankaaga wax isaga bedelin baa loo jeedayay in loo ictikaafo oo ictikaafkaa loo maro ictikaafkaa saasuu sunno wanaagsan u yahay gaar ahaan tobanka dambe habeenkaasi tobanka dambey ku jirtaa nabiga alay sl mar baa loo sheegay habeenka ay tahay markii loo sheegay inuu saxaabada u sheego u soo baxay iyagoo ay laba murmayaan buu u yimid kaasuu wuxuu yidhi waxaa liii sheego inaan idiin sheegaan u soo baxay murankaa dartii baana bahashii cilmigeedii layga kor yeelay oo la halmaansiiyey ee tobanka dambe dadaala ayuu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam tobanka dambe ay ku jirtaa saa darteed baa tobanka dambe loo wada dadaalayaa kadib saxaabo badan baa isu timid oo qof walba habeenada ka mid oo tobankaa uun qaybaheeda dambe a ku riyoodeen markaasuu wuxuu yidhi waxaan arkaa buu yidhi riyadiinnu inay toddobada u dambaysa isku waafaqsan tahay ee toddobadaa dadaala markana dadka wuxuu ku yihi taxaraw laylata alqadri fi lwitri min alcashri alawaakhir min ramadaan ramadaanka tobanka dambe habeenada tirada isdheer aheen laba u qaybsamin ah habeenadaa ka raadiyey saa darteed nabig alay slam mar kale wuxuu yidhi waxaad ka raadisaan tobanka dambe oo habadaban ka mid ah fii taasicatin tabqa fii saabicatin tabqa fii khaamisatin tabqa markay sagaal dhiman tahay markay toddoba dhiman tahay iyo markay dhiman tahay shan tobanka dambe inay ku jirta waa la hubaa laakiin watarkeeda inay ku jirtana sidoo kale waa la hubaa laakiin watarkii si loo xisaabayaan la garanayn habeenadu axaadiidka ku soo aroortay habeenkee bay noqon kartaay way fara badan tahay qaar 21 ay tilmaamayaan qaar 23 ay tilmaamayaan qaar 27 ay tilmaamayaan mar nabigu wuxuu leeyahay fi aakhiri laylatin habeenka u dambaysay noqon kartaa mardii cilmigeeda iyo yaqiinta la kor yeelay tobanka damana ay ku jirtay waliba watarkeeda tobanka dambaba in la wada dadaala la rabaa saas darteed aan dhowr qodob ku soo gunaanada kelmaddan dadaalka ajirkaa badan inaan raadina la doonayo
ayrada marka koowaad xadiid nabiga qowl ka sugan ama jiro oo habeen gaar ah sheegaya dhammaan axaadiidta habeen hebel 23 27 leh ee la odhanaya nabigaa sidaa yidhi sal ly slam dhammaan dicaaf wey wax sugan ma jiro mana iskabi karta oo xadiidka daciifka markuu iskabaya waxaa shardi ah isan xadiid saxiixa ka hor imanin xadiidka saxiixa ee nabigu ku tilmaamay habeenkay ahayd in la halmaansiiyey ayay ka hor imanayaan axaadiidta kooxda ee daciifka ee lagu wariyey nabigaa yidhi waa 27 ama saxaabiga Ubay ibn Kacb ee ku dhaaranaya waa ijtihaadkiisa riwaayaadkana way ka muuqataa qoraxda soo bixitaankeeda calaamadu arkay baan ku garanayaa buu yidhi ijtihaad isagu uu ku qancay bay ahayd laakiin dee saxaabadu ayna kula wada qancin ijtihaadkiisoo isaga ula muuqday inuu sax yahay buu ku dhaaranayay ee riwaayada saxiixa ee Ubay ibn Kacb ma aha nabigaa yidhi oon ku dhaaranaya dhammaan riwaayaad kale nabigaa yidhi ma asixin in la isku kamanasaan soo sheegna waxay u baahan tahay inaynan saxaax ka hor imanin taasoo halkan diidaysa saxaaxa ay ka hor imanayaan arrinta labaad ee rabo 10ka dambe watarkooda ay ku jirtaa aan nidhi waxaa mugdi ku jira watarka sida loo xisaabayo markii 20 dhammaato habeenka xiga 21 waa tira isdheer waxaan idhahnaa watarka waxaan ka tirinaa intii tagtay markay tagto halkii baan tirada ka sii wadaynaayo biictibaari albaaqi baan ku xisaabaynaa biictibaari almaadi intii tagtay baan ku dhisaynaa tirada mise 10ka dambe baan gadaal ka soo tirinaynaa oo 30 hadday tahay habeenkii u dambeeyey waa 30 habeenka 21kaa 30 buu noqonayaa 10 buu noqonayaa gadaal haddaan ka soo tirinay bishuna 30 noqonaysa 29 hadday noqonaysana 9 buu noqonayaa axaadiidta daahirkeedu sida loo tirinayo culimmadu waa ku kala aragti duwan yihiin aragtiyaha kala duwanna qolo walba axaadiid xoogaynaysay leeyihiin xadiidku dambeeyaan sheegnay ibn Cabbaas ee fii 9 tabqa fii 7 tabqa fii 5 tabqa markii saxaabada qaar ka mid sida Abu Saciid la weydiiyey maxaa looga jeedaa la yidhi wuxuu yidhi 21 markay tagto habeenka xigaa 9 habeenka xigaa 9 dhinac waa ka 22 oo tira isdheer maaha dhinacna waa 9 oo gadaal haddii laga soo tiriyo 30 noqoto bishu tira isdheer wey wuxuu yidhi 23 markay tagto habeenka soo socdaa 7 ah wuxuu 7 ku noqon karaa bil 30 oo gadaal laga soo tiriyey haddii kale 24 buu noqonayaa wuxuu yidhi haddii ay 25 tagto habeenka soo socdaa 5 ah waa 30 gadaal laga soo tiriyey 25 haddii kale markay tagto dhinaca kale waa 26 tiris dheer ma noqonayo kee loo tirinayaa yaqiin la huba ma jirto labadaba waa dhici kartaa maxaad kaga bixi kartaa inaad wada dadaasho oo 10 ama 9 weeye bishu waxa dambe intaba ayna habeenkaa bixin qodobka saddexaad aan rabo inay murtida aad qaadanaysa noqotay waxaa weeye calaamadaha lagu gartaay ma jirta calaamad hubaal iyo yaqiin ku gaadhsiinaysa haddana aad ka gaari karto inaad laylatul qadri haleesho oo ka soo horeysa ama ku lamaan ma jirto jawiga kala degan calaamadaha la sheego dhani waa wax aan shaki ka bixi karin kuleyl iyo qabow haddii la yidhaahdo dadku kuleyl iyo qabow dareenkooda isku mid ma aha meelaha qaarkoodna xilli kuleyl ay kusoo wada aadaa meelaha qaarkoodna xilli qabooba ay kusoo wada aadaa waxa ugu fududee la dhihi karo ugu sahlan ugu roon waa haddii la yidhaahdo qoraxdu markay xalay oo kale laylatul qadri ahayd subaxii qoraxdu iyadoon shucaaca lahayn bay soo baxdaa oo laba arrimood labadaba waddamada qaarkood daruur iyo waxaa laga yaabaa qoraxba inaan la arag marka ma anfacayso kuway anfici lahaydna haddiiba qoraxdii aad aragto marka laga soo taga indhahaaga iyo si inay u arki karaan habeenkii tag haddaad dadaashana dadaasha haddii kalena fursaddii ku dhaaftay
aragtidaada wax ka khaldamana waxay kugu dhalin kartaa ama inaad adoo dadaalay isu haysata habeenkii ilaaheeda wax kaa khaldamaan ama aad niyad jabtaba adoo dadaali lahay oo laga yaaba inay kaa dambayso wataa qoraxdii inaad tiraado aragti khaldan haddiibase ay dhacdo inay qoraxdu tilmaantii rasmi u yeelato habeenkii waa tagay calaamad ka soo horrayso dadaal aad u kaalmaysanaysa maaha niyadun baad yar qaboojinaysaa ama ka yar nixinaysaa nafta qodobka afraad aan raba inaan kusoo gunaanado kelimadan waxaa weeye dadaalka ramadaanka laylatulqadrigu in ajirkeeda aad heshaay kuma xidhna ajirkeeda inaad hesho kuma xidhna inaad garato oo lagugu ilhaamiyo calaamad kuu muuqato kuma xidhna waxay ku xiran tahay qoraxda dhicitaankeeda ilaa fajarka salaada subaxgelitaankeeda camal saalix iyo cibaado wanaagsan oo sunnadii waafaqsan oo ikhlaas lahoo toosan inaad dadaalkii samaysaan ajirka ku heli ama dareen ama ha dareemin ama adigu calaamaad ha kuu muuqdan ama yaanay kuu muuqan iskuma xidhna fadliga iyo ajirka in la helo iyo inay calaamaad kuu muuqdaan iskuma xidhna waxaa isku xidhan inaad dadaalkii samayso oy habeenkii waafaqdo gunaanadku waxaa weeye haddaad dadaalkiina ilaahay ku waafajiyo habeenkiina samayso ajirka waad heli haddaad 10 sidaa u dadaashana ajirkii laylatulqadriga waad heli haddii sanadkan aad joogtana sanadka dambe inaad noolaan war looma hayo dadaal baa ina wada faran ilahina subxana wa tacala waxaan ka baryaynaa inuu ina waafajiyo inagana aqbalo sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu